Dardaarankii dhalinyarada. Waqtiga dhalinyaranimadu waa waqti aad iyo aad u qiimo badan. Asagoo saas ah, haddana kama faa'iidaystaan badana dhalinyarada, balse waxay ka shalaayaan markay duqoobaan. Xilliga dhalinyaranimadu waa xilli qaali ku ah nolosha bani'aadamka, sababtoo ah qofku wuxuu u dhexeeyaa laba xaaladood oo kala ah xilliga carruurnimada oo ah xilli uu ka soo gudbay, iyo xilliga odaynimada oo ah xilli u dhiman. Nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa laga wariyay inuu dhahay: shan ka faa'iidayso intayna shan kugu imaanin. Dhalinyaranimada ka faa'iidayso inta aadan duqoobin. Caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aadan xanuunsanin. Hantidaadana ka faa'iidayso inta aadan faqri noqonin. Firaaqanimadana ka faa'iidayso inta aadan mashquulin. Noloshaadana ka faa'iidayso inta aadan dhimanin ka hor. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu kaloo inoo sheegay in 7 ka mid ah dadka ay harsan doonaan carshiga Alle maalinka qiyaamaha iyadoo uusan jirin wax hoos ah. Waxaana ka mid ahaa qof dhalinyaro ah oo ku barbaaray cibaadada Alle. Haddii aadan ka faa'iidaysanin dhalinyaranimadaada, waa ka shalayn doontaa, weliba mar aysan waxba taraynin shalayto. Waxaana dhihi doontaa: Allow yaa mar uun kuu soo celiyo dhalinyaranimadii. Dhalinyaroy ogaada, adduunkani ma taalo wax raaxo ah. Imaam Axmed ayaa la weydiiyey goormuu qofka helaa raaxada dhabta ah. Wuxuuna yidhi, marka ugu horrayso ee uu jannada galo. Weligaa murug ma ka baxaysid ilaa lagugu bishaareeyo janno oo kitaabkaagan lagaa siiyo gacanta midig, ishaaduna ay ku qabowsato aragtida Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Ogow, adduunyadu way jirtay adigoon jirin, wayna jiraysaa adigoon jirin. Waxbana waqtigaaga qaaliga ha isaga luminin. Garo qiimaha waqtigaaga, mar walbana ahaaw mid ka fikira aakhiradiisa. Su'aal: weligaa ma isweydiisay inta saac ku soo marto maalintii, inta jeer ee aad Rabbiga xustay? Is xisaabi intaan lagu xisaabin.